Waa kuma Suleymaan Al-Qaanuuni. Maamulka magaalada Riyaadh ee dalka Sacuudi Carabiya ayaa magaciisa ka tirtiray Suleymaan Al-Qaanuuni, mid ka mid ah wadooyinka waddankaasi. Dadka baraha bulshada adeegsada ee muwaadiniinta Sacuudiga ayaa barahooda Twitter-ka waxa ay soo dhigeen sawirro muujinaya xilligii ay dowladda dalkaasi Sacuudiga, gaar ahaan maamulka magaalada Riyaadh, ay ka tirtireen magacii Suleymaan Al-Qaanuuni, mid ka mid ah wadooyinka waddankaasi. Intii uu xukumayay Suleymaan Al-Qaanuuni cahdigii Cuthmaaniyiinta, waxa uu ahaa mid gaaray 46 sano. Haddaba waa kuma Suleymaan Al-Qaanuuni? Suleymaan Al-Qaanuuni waxa uu dhashay 6 November 1494. Waxa uu ku dhashay magaalada Trabzon ee waddanka Turkiga. Waa midkii 10aad Salaadiinta Cuthmaaniyiinta. Waa midkii labaad ee magacaasi qaata khilaafada Al Cuthmaan oo cahdigoodu meel sare uu gaaray. Haddaba Suleymaan ayaa ka dhaxlay aabihiisa saldanadda bishii Sebtembar 1420. Cahdigiisa waxa uu bilaabay dagaalka ka dhanka Masiixiyiinta bartamaha Yurub. Waxaa sidoo kale gacantiisa ku baxay waddanka Bulgaria sanadkii 1521 ilaa iyo 1523 oo magaalooyin badan gacantiisu ay soo galeen. Dhinaca bari, Suleymaan ayaa qaaday tallaabooyin waaweyn oo ka dhan ah magaalooyinka Faris la isku oran jiray sanadihii 1534 iyo 1549. Waxa ay ku soo idlaatay in Cuthmaaniyiintu meelo badan oo Yurub ay la wadaagaan amaba ay la wareegeen. Cuthmaaniyiinta ayaa galay waddankaasi Ciraaq, halkaasoo si weyn ay u maamuleen. Cahdigii Suleymaan Al-Qaanuuni, Tripoli, waqooyiga Afrika, waxa ay ku dhacday gacantii Cuthmaaniyiinta 1551, halkaasoo cagta la mariyay maamulkii Isbaaniyiinta ee awoodda badnaa. Dagaal ka dhacay Tripoli 1560, Cuthmaaniyiinta waxa ay ku fashilmeen inay la wareegaan jasiiradda Malta. Ciidamada badda Cuthmaaniyiinta waqtigaas waxa ay ahaayeen kuwo aad u adag, waxa ay gaarsiisanayeen ilaa iyo dalka Indiya. Sanadihii ugu dambeeyay xukunkaasi waxaa hareeyay colaad u dhaxaysay carruurta boqortooyada. Mustafa waxa uu noqday 1553 meel la tilmaamay in ay isku hardiyaan carruurta saldanadda.